shirkadaha ugu waaweyn dunida kuwooda ugu qiimaha badan dal kasta sanadkan 2018 qiimeyntan oo ah sanadle ayaa lagu soo bandhigayaa shirkada ugu qiimaha badan shirkadaha ugu waaweyn dunida ayada oo wadan kasta laga soo qaato shirkad ugu qiimaha badan sanadkan shirkada Amazon oo ah shirkad laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa dhammaan shirkadaha Mareykanka iyo shirkadaha caalamka intiisa kalaba ku garaacday qiimeyntan ee ah shirkada ugu qiimaha badan shirkada ugu waaweyn ee dunida sanadkan 2018 ayadoo oo qiimaheedu lagu sheegay 150.8 bilyan taas oo macnaheedu tahay shirkada Amazon in ay tahay shirkada ugu qiimaha badan caalamka iyo kuwa wadanka Mareykanka sidoo kale sida laga soo xigtay qiimaha maaliyadda shirkada ayaa wuxuu qiimaheedu shirkada Amazon kor u kacay 42% intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2018 sida ugu xusan qiimeynta sanad la aha ku darso Amazon sanadka 2017 qiimeynta shirkada ugu qiimaha badan shirkadaha ugu waaweyn dunida 2017 waxayna ka jirtay kaalinta afraad halka ay sanadkan 2018 kaga jirto kaalinta koowaad sharaxa sawirada waa sawir muujinaya wadan waliba shirkada ugu qiimaha badan sanadkan 2018 shirkad waliba magaceeda iyo qiimaha ay joogto waxa lagu xardhay wadanka ay ka soo jeedo qiraradiisa ayada oo macnaheedu tahay wadan waliba shirkada ugu qiimaha badan sanadkan in laga soo qaato labo waa sawir garaaf ah oo muujinaya shanta shirkad ee dunida ugu qiimaha badan sanadka 2018 iyo kor u kaca xawliga ah oo ay shirkada Amazon sameysay sanadkan shanta shirkadood ee dunida ugu qiimaha badan afar shirkad oo kala ah Amazon, Apple, Google iyo Facebook ee ka mid ah wadanka Mareykanka halka ay Samsung xarunteedu tahay South Korea